haddaba Soomaalida oo iyada ku dhaqanta dhaqamo kala duwan oo diinta Islaamka ka fog, iyadoo qabaa'ilo la degan ku tilmaamta kuwa ka hooseeya kuwa kale oo aysan isgorsanin dhaqanna aysan wadaagin, ayaa haddana qabaa'ilada Soomaaliyeed ee iyagu degan dhulka Soomaaliya ay u kala degan yihiin qabiilo iyaga dhexdoodana iska guursada. haddaba fanaaniinta Soomaaliyeed oo iyaga qaybahooda kala duwan ayaa waxaa saameyn ku yeelatay dhaqankaasi foosha xun ay Soomaalidu ay leeyihiin. sidaa ay tahayna fanaaniinta way jibiyeen darbigaasi oo ay ka gudbeen xayndaabka ah in qabiilka lagusan guursanin. haddaba maanta waxaynu soo qaadanaynaa fanaaniinta gabooye iyagu qaba fanaaniinta qabiilada kale ee ka soo jeeda. waxaynu ka bilaabaynaa fanaanka weyn ee codka dahabiga lahaa, fanaankii codka halaasiga lahaa ee Cabdi Tahliil Warsame, allaha u naxariiste. Cabdi Tahliil oo ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed hobolada ugu codka tulmoon, codkiisana ay yihiin kuwa ay shimbiraha dhegaystaan, ayaa waxa uu ahaa hormuudka iyo weliba ka mid ah qodobyada uu ku taagnaa fanka Soomaalida. Cabdi Tahliil allah u naxariiste waxa uu ahaa fanaan codkiisa iyo weliba heesihiisa ay ahaayeen kuwa caan baxay oo qof kastoo Soomaali ah magaciisa iyo weliba maqalkiisa uu yaqaano gudaha geyga Soomaaliya iyo weliba dal shisheeye intaba. Cabdi Tahliil ayaa isagu waxa uu ka soo jeedaa qabiilka loo yaqaano Mandhibaanka. Cabdi Tahliil ayaa isagu waxa uu qabay gabadh ka soo jeeda qabaa'ilada iyaga isku xisaabiya inay yihiin qabiilada waaweyn ee goobta isu yaqaana. Cabdi Tahliil ayaa gabadha uu qabay waxa ay ka soo jeeday qabiilka Hawiyaha, gaar ahaan waxay ahayd gabadh mudulood ah oo Abgaal Cismaan ah, welibana kasii awrsan Geli Abgaal. Cabdi Tahliil ayaa isagu waxa uu ka mid yahay fanaaniinta gabooye ee iyagu guursaday ama qaba iminkaba fanaaniinta qabiilada kale ka soo jeeda. Cabdi Tahliil ayaa isagu waxa uu jibiyey xayndaabkii ay Soomaalida dhex dhigtay qabaa'ilada kala duwan oo iyagu yidhaahdaan isma guursano gabooyaha. Cabdi Tahliil ayaa qabiilkaasi Abgaalka ah ka guursaday, welibana ilma iyo ubad ay ka dhalay iyagoo uu la xididay qabiilkaasi muduloodka, welibana ilma iyo ubad ay ka dhalay iyagoo uu la xididay qabiilkaasi muduloodka. وقلبه مرخاتي في عني حنا ولا تقا إيمان كلا قدقا هاي مركي وماني كوكوشي أروني شوف بالله إيمان كذا قدني أجا معولا لها مركوبحي إسكالي مركوبي انتفاع سجوغو محاورك ما ذكري محاور ذرني كذي قبل لو سهانا ياغو ولبا أسارر كتوليو محايدي حنبرشي أبال ترني هداد حينك وكحذي إلو شدوي نفسا بحذنن كأوغنو روحن بي أقوبار تعبو عني بكاء سنمي إله بن طلب سرتي وإله بن طلب سرتي. fanaanada labaad aynu soo qaadanayno oo iyaga guursaday fanaaniin qabiilada kale ah waa fanaanada weyn ee codka hibada Ilaahay u siiyey
fanaanad hab soo gudbinteeda iyo weliba hab masraxiyeedkeeda ay ahayd mid cidina ilaa iminka aysan gaadhin. fanaanad hadday masraxa soo istaagto muusikadana uu dhawaaqo shimbiruhu iyo dadku ay wada istaagayaan dhaqaaqooda iyo qobka ciyaarkoona aad la yaabayso. haddaba fanaanadaasi waa fanaanada codka dahabiga leh ee caan baxday Maryan Mursal Ciise Bootaan. waxay ka mid ahayd fanaaniintii dabayaaqadii lixdameeyadii soo galay fanka Soomaaliyeed. Maryan waxay ku dhalatay gobolka Mudug. Axmed Naaji Sacad ayaa fanka soo geliyay. Maryan Mursal Ciise Bootaan qof kastoo Soomaaliya meel kastuu joogo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waa uu yaqaanaa. fanaanad hab soo gudbin masraxiyad wanaagsan cod dahabiyana ilaahay uu ku manaystay weeye. fanaanada ayaa iyadu jacayl lixaad leh galgacaltooyo aad u qiimo badan ay isu qaadeen fanaan kale oo isaga aad iyo aad u cod tulmoon. waa fanaanka weyn ee Axmed Cali Cigaal. jacaylkii Axmed Cali Cigaal iyo Maryan ayaa wuxuu noqday mid taabagala dadkuna ay aad iyo aad ula socdeen. wuxuu ahaa jacayl dadka fanka u dhundoloola iyo Soomaalida kaleba ay aad iyo aad ula socotay. madaxda dalkana ay ka qayb qaadatay in jacaylkaasi uu miro dhalo, aqal wanaagsanna laga askumo, welibana aasaas wacan loo dhigo si ubad fiican oo jacayl iyo awlaad jacayl dhalay ay halkaasi ugaaga yimaadaan. haddaba Axmed Cali Cigaal oo ka soo jeeda qabiilka Majeerteen ayaa isagu wuxuu cadaadis kala kulmay ehelkiisa iyo weliba dadkiisa inuusan guursan gabadh gabooye ah oo aysan isu qalmin. waa siday iyagu aaminsan yihiin. Axmed wuu diiday inuu dhageysto dadka talooyinka siinaya ee ah inuusan guursan kana fogaado gabadhaasi gabooyaha ah. qoyskiisa iyo ehelkiisa iyo walaalihiisa oo uu kow ka ahaa abwaankii weynaa Cabdiqaadir Cali Cigaal ayaa iyagu ugu hanjabay inay tacsi ka dhiganayaan, welibana ay duugayaan isagoo nool, qoyskana ay ka bixinayaan haddii uu guursado gabadhaasi uu jecel yahay ee gabooyaha ah. waa Maryan Mursal Ciise Bootaane. Axmed hadalkooda iyo jawaabdooda toona dhegjalaq umuusan siinin, waa uuna ku dhaqaaqay inuu ka miro dhaliyo jaceylkiisa dhabta ahaa. waa uuna guursaday gabadhuu jeclaa ee Maryan Mursal. ugamana hadhin gabooye weeye iyo cid kale weeye intaba iyo isma guursataan. jacaylka haddana baabinaye adaa beerkay xadhe haddana bay ku shubaye jacaylka haddana baabinaye adaa beerkay xadhe haddana bay ku shubaye beeniga dhaashay haddana ibedelaya beeniga dhaashay haddana ibedelaya beruka soraynti fanaanad hadday masraxa soo istaagto muusikadana uu dhawaaqo dadku ay wada istaagayaan dhaqaaqooda iyo qofka ciyaarkoona aad la yaabayso. haddaba fanaanadaasi waa fanaanada codka dahabiga leh ee caan baxday Maryan Mursal Ciise Bootaan. dabayaaqadii lixdameeyadii soo galay fanka Soomaaliyeed. Maryan waxay ku dhalatay gobolka Mudug. Axmed Naaji Sacad ayaa Ciise Bootaan qof kastoo Soomaaliya meel kastuu joogo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waa yaqaanaa. fanaanada saddexaad aynu soo qaadanayno waa Nimco Yaasiin. Nimco Yaasiin waxay ka mid tahay fanaaniintii siddeetamaadkii fanka Soomaalida soo galay. waxay ka soo jeedaa magaalada Sheekh, halkaasi ay ku dhalatay, macallimadna ay ka ahayd. Nimco ayaa iyadu ah gabadh gabooye ah. fanaaniinta codka dahabiga leh ayay ka mid tahay. ilaahay joogga iyo jamaalka intaba u dhameeyey. Nimco Yaasiin ayaa iyadu magaalada Muqdisho fanka kaga soo gashay, waxaana ku soo gacan qabtay Cabdalla Yuusuf Hanuuniye iyo weliba Maxamed Suleymaan Tubeec, halka Shimaale Axmed Shimaalna uu ahaa fanaankii heesaheedii koowaad la qaaday. Nimco ayaa iyadu ka dhex muuqatay fanaaniintii aynigeeda ahaa, iyadoo welibana ay ka soo caanbaxday.
Nimco Yaasin ayaa iyadu waxa ay guursatay niman aad iyo aad u badan iyadoo sida dharka isaga bedesho nimanka sanad walbana wiil cusub guursata. Nimco oo iyadu weligeed waxba aana dhalin awlaadna Ilaahay uu siinin ayaa iyadu u muuqata inay aad iyo aad ugu qanacsan tahay nolosha inay happy ku tahay inay guursato sanad walba nin cusub. Nimco Yaasin oo ayaan dhaweyd iyadu sheegatay inay ka baxday Gabooye ayna gashay qabiilka Sacad Muuse ee Isaaqa ka tirsan ayaa iyagu Sacad Muuse naftirkooda diideen, sheegeen inaysan ahayn gabar Sacad Muuse ee tahay gabar Gabooye qabiilkeedana ay waajib ku tahay Nimco inay ku qanacdo. Nimco ayaa iyadu waxay guursatay niman Isaaq kuwa Hawiye iminka ninka qabana waa Majeerteen iyadoo weliba Gabooye fanaaniinta gabdhaha ayaa iyagu waxay u muuqdaan inay ka miro dhalinayaan jaceylka ama ay u qaadaan galgacaltooyada ragga ka soo jeeda qabiilada kale, inkastoo ragga Gabooye iyagu dhibaato culus iyo xeyndaab aad u weyn ay kaga gudban tahay inay guursadaan gabdha qabaa'ilada kale ka soo jeeda. Gabdhaha Gabooye oo Ilaahay joog iyo jamaal u dhameeyay way u fududahay inay guursadaan ragga kale. Nimco Yaasin ayaa iyadu iminka waxay qabtaan nin Majeerteen dad badan ayaa waxay sheegayaan Nimco inay tahay gabadh Gabooye oo weliba ku dhalatay gobolka Saaxil magaalada Sheekh ee dhulka Somaliland loo yaqaano. haddaba fanaaniinta Gabooye ee guursada fanaaniinta qabiilada kale ka soo jeeda waa ay badan yihiin. maanta qaybtii koowaad ayaynu halkaas ku soo gabagabeynaynaa. qaybta labaad intaynu dib dambe ugu kulmi doono nabaadiino nooli kulanti amaana Allah.